kalkiye anna mayra saratay wasahashanaye udigaysi sarada masabana badan baan sadaalku noolaa waqtigu waa uu isbedelay xilligana reer guuraa iyo ninka ramadiyaal waa ay u siman yihiin nolosha miyiga waqtiga barwaaqada lagu jiro ee raxmaadka rabbina ay dhulka ku hooreen nabaadkuna uu yahay midka isgaadhay alaaba waxaa caadiyan xoolaha la foofshaa ama qoyska reer guuraaga ah iyo kuwa ramadiyaalaaba ay ooda ka qaadaan kadinka iyo weliba xerada xoolaha intaba barqada abaaraa 9 subaxnimo hase yeeshee xilligu maaha xilligii abaartana dhulku waa ka siman yahay waxaana weli la wada naawilaya dayrtii oon dhanna ka hoorin waxaanu sii deynaa imika farsamo waxaanu xoolaha sii deynaa barihii xilliyada guuga waxaanu sii deyn jiray ay xooluhu cunayaan ilaa 10 ayaa ooda laga qaadi jiray imika waxaanu sii deynaa 6 iyo barka ayaa fantal shulu fil ardi nin qaraafadeen iskaba qadaba عليتو حلي دبي ayaa marayeen oo aynu deesunimi adana waxa weeyaan martigelin way igu leedahay marka waxa weeyaan neefku waa inoo dambeeyaa inaynu deema garanaysa Suuriyada way inoo dambeeyaa ima kana geeliyo kaasa ayaynu horta caana ka Soomaaliyeed afur xoolaha iyo xaalkooda iyaga waxa weeyaan xooluhu waxaan ku abaarta joogto mooyaane xooluhu way qurux badan yihiin way aad u wanaagsan oo sida waqtiga dhulka ka joogta dadka annaga u labanba geeliyo marka ninka geeliyo ari iyo afar meel adduunye oran jireen intii ay isugu ka 5 meel adduunyaale way isugu xilligii dambe waxa noqlayay waqti waxaan farabadan iyo guux xaafada ka baxay waya waa adigu de waa wax iska jiro waxaan ku iyadoo abaarta haddana awrkeeda qooqan waxaan u gartay inaan baa xalay laga leeyahay marka waxa weeyaan xalayto aniga waxa iga dhaceen inaan bay iga dhaceen marka saaka uun baan tibay anigu saakada inaan tiitowday marka waxa weey kale habla loo kala dhaco waa dhacbaan u arkay ee lala kala tago xasee loo wada xaala waxaan ogaa iyadoo la soo oggeed fadhiisto waxa loo wada xaalayaa inantan uu la tagayaa marka uu la tagana wuxuu keenayaa hibadii isagoo 2 nin ay sidaan bay hibadii keenayaan meelahana laga eegeeyaa ama telefoonkaaga la soo garaacaya dabato waxa lagu odhanaya inantii annaga hayno noo hibe marka inaan nin raacday waa inaad hibaysaa haddaad hibeen weydo oo waxaan ku wari waa dee dadkii baaba kula yaabaya xitaa kuwii reerkiina ahaa baaba kugu qaylinaya oo ceeb weeyaane masbaxaadinatu hibeen wey walaalkaa baaba lagaaga taageli marka imika ninkaaga dhacay waa intii hibayso labadii nin yimaada haddii aad la yimaado anigu imika hadda cid dhacdayna war uma hayo ayday raacdayna war uma hayo laakiin hadday soo cadaato te waa la hibeenayaa wey jamaal nimankayga martida kuwa ay Suuriyada inantana waxaan ka cunay arigii wuu foofay waya waxa raacay ninkii Cabdiraxmaan waya geelina waa kan ina dhaafayo isna Xasan Saleebaan baa raacay waya bare
برنا وكان مقدار راعي وانقرت هودير ها iyada la saydi saaka inoo soo lisaysay cadayskii shaaha oo reerka ugu yar reerkan ugu yar oo 5 jir ha iyana waxay raacday maqal yar yar ashi yar yaray tii mid yar yar oo shaqaysa ha waxa soo haray adiga iyo wadaadii waan gartay hawl maalmeedkii qoysku saasoo ku sidaas ku kala foofay halka hadaan kaaga waramo islaantu waxa weeyaan iyadu waxay shaqada guriga iyo wax karinta hadii aanu dhaa biyaha soo dhaamintooda barkada ku dhow wax karinta ay ku shaqo leedahay anigu waxaan ahay kormeer hawsha guud oo geel mar baan soo eegayaa ariga mar baan soo eegayaa hadii hooday yar iyo maqasho mar baan eegayo saa markaan soo kormarteeyo waan ka soo noqonaya marka waxa weey checking guud baani halku tagay ina caruurti ka jeesatay